السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وربي دنبيك وحي دنبيه نقداف إن واحد ربالك أنا لو رقدب كسو تابتو ريرك اللي يهدو هبرتش على الله هذا واحد مقلي مركب واحد يرير للرقيو حاجة صار قصو قلا إن واحد ركا إن وريرتين إن دوختين السياسيين إذا كوش قيستي إن سقال يتهم بعرفرنا كوسو ديسين ودنك مركب بعرفرنا كقالمه أي كوبتان عارق وكوبتو جيله بربنا نعود شيران حاجة سوت شيران حاجة سوت شيران حاجة سوت شيران نرجع بربريان مركب ما قرقر شيء دي بدك هذا ماذا سياسة دي محيصوص هذا قالمها سلبنا وين كدالي سياسة سلاينا وكدالي تبدنا كاهن يقال ما ينقذين مر بدنا ياعي برف بق وحنا الله رير كانوا رير كان كذا شبر شعروا وحنا لها سيبه هرت ميهدين ما نتهدين مشرح ما أنت رير كستا أو الحسب كستا رير وكل حساب تمايا وايدنك idinka siyaasiyiintiina caaran bay noqdeenoo reerkii way ilmaar badna u jiireen waxaan maqlayay halkana laba isku haysta kulmiye xaqana laba isku haysta kow horta meel uu ku shaaciyay ina gaafaadhi waxaan ahay isagoo la aflagaadinayaan arkayay laakiin waa in mutacaalin qofka haduu mutacaalin qoon yar socda yahay cidina wax kama qaato meel uu ku shaaciyay musharax baan hay maarag ina xaashina meel uu kaga baxay kulmiye maan arag gudoomiyahan marka ina xaashil la daydayo ee wadani baa siinaya wadani baa qaatay wadani baa siinaya leeyahay ma hoos ka dhiiba ina gafadhisa ma hoos ka dhiiba tiisu horta labada nin baan barba balcaaw iyo habar jeclo ina la hadlo horta labada xisbiga kulmiye isku haysta halka ay dhig haday jiraan halka ay dhig way waxay isku haysteen waa wuxoodii ay isku haystaan labadan inan baan la hadlayaa maxamed xaashi iyo xirsi wuu ahaa wadani hal cad buu halka kaga dhaqaaqay dawladii Silaayo halkaas uu toos u gala wixii alla uga calfo badee hogaamiyaha waxa la uga calfo wadani buu ahaa haddaba maxamuud xaashi kulmiye kaba bixine mariya oo wadani buu gala mariyaada waa riyo bisa waa dhab mid baan soo sheegay maxamuud xaashi waa siyaasiyiinta maanta reer ku jirto hormuud iyo ku jira qofka intiisa la siiya haddaba mid baa inaadeer ku seegan adigoo hanti haysta oo shalay muuse u ololeynayay oo sankii labada dhagood nooga daluliyay oo Silaayo eryanayay oo Suldaan Cali eryanayay oo odayaal eryanayay oo aad meel walba jafta la haysay oo sida u eryanaysay oo hay doorta raac lahayd inaad maanta tiraahdo waan duminaya kulmiye xaq ma ilaa iyo hadda lama hay adoon baa fududaaday ilaa iyo hadda lama hayo meel xisbiga la gudoomiyay in lagu wareejiyo lagu diiday ما بالله هيبا مو سنة أظن بعد لك بودي مال وكل يريد يحس بجها برجع إذا سين مايو ما ينو أرق لكن وادك دكتي موسى يا إذن كاز دولة السينية موسى دي حنيف بس واضح لحكش موسى أنا إنه قدومية هيو أنت وكدك يو أمد كل وانا يو nabadgelyada xisbiga iyo dawladda dhexdooda ayuu isugu dhajin anigu ma arko inuu muuse habar jecel xumayn ugu dhagayay xisbiga maamulkaydu ku xumeeyo shaqaalaha keeriyo diyaaradaha ka xidho haydin xanibo haydin dilo haydin badilo waa run laakiin xisbiga isuguma dhajinaynin hebel ku xumeey laakiin nabadgelyada xisbiga waayo xisbiga marka adigu ku jirtid lagu siiyaba maxamed xaashiw uu ku dhiibo
xinif siyaasadeedna ka dhaxayso isaga iyo tii siiraanya ka dhexdhacaysay uunbaa idinka dhexdhacaysa dabeedna anaguma muran iyo maanta oo dhan kana khaldan ku jiri mayno marka anigu waxaan aaminsanahay inuu hayo waa u damba xisbigan isagu marka uu doono hadii ku wareejiyo marka waa diyaar degdegti dagaal baad iska gashay aan meel allaale meel ku salaysan yahay anigu aan garanay xisbi kulmiyana Muuse la dagaalamaya Muuse isagaaba isla dagaalamay maxaa uu kala dagaalama Muuse isagu isla dagaalamay xisbigana Muuse la dagaalamayaba xisbigan waayo ninku markaanu qarash bixinayn lacag bixinayn markaanu soo jiidasho dadka uu kasbado lahayn marka uu iska yahay ana amiir anta amiir de isaga la dagaalamaya maada xisbad ka kaxeeyay dadku iyaga iskood uga tagay Muuse reerahan xildhibaanada meel kale ka soo baxay de iskood bay uga tageen because markuu isagu reerkii dhamaayay wax la lahaa uu qori beeshay u qaatay halka ayaa maray nin habar jeclaa uu yiri de miyay joogayaan adiga ma iyaga iska tagayba marka Muuse isagaaba naftiisa la dagaalamaya hadduu xitaa bashar isagu unba isla dagaalamaya cid kale la dagaalamaya ma jirto marka xisbiga haladii ku soo wareejiyo shira idinku hadaa bar jeclatiin shir qabsada ninka xisbiga u garataan soo saara daweedinkii lahaa maanta anaga lehe anigu runtii markaan ka hadlo nin kasta oo qabsada waan taageeriya waayo gabadh baan hayo de kale anaga wax looma ogolidin mar haddaan anaga wixii ogolayna oo aan habla wax u ogolayna de maxaa iyo ka helintina ay saaray idin kala garanayno guuleystan taagana taasi waa ta maxamed xaashi inaadeer ha noqonin adoo xisbi leh oo xisbi samaystay oo ragii ugu horeeyay baan hebel uga tagayaa waa ku yar ceeb meel kasta tasal martibaad ku tago marti baa tahay kan waxaad garanaysaa waxa ku jira oo dhan kan waxaad garanaysaa ilaa iyo inta saaxiibada ku jira asxaabtaada ku jirta dad kula dagaal tagaya ku jira dad kula wada dagaalamaya ku jira waa xisbigaagi waa ka soo abaabushay xaqaad uga tagay mid cusub dad cusub barashadiisa siyaasad isku qabsigeeda maanta ma hadhow waxaan doontaa garabka hebel baan anigu waxa ku oran lahaa meeshaad ku qoydo waa lagu qalajistaaye xisbigaaga ka tagi taasi waa taa habar jeclna waxa leeyahay haddii gudoomiye laga siiyo halkan ama xirsi ama maxamed xaashi oo halkan laga siiyo ina kaahina ma ka faadhi maxay idinku noqonaysaa habar jecloy maxaa noqonaysaa ruushkii burburay waana inta kaliya ee la raadinaya unit cast way inta kaliya dagaalka lagu yahay marka waxa noqonaysaan ruushkii burburay 30 sano oo dambe madaxnimo soo taabi maysan iska daa maanta iyo bari iyo sanadka dambe 10 sano kadib 10 years after that baad sugi doontaan waxaan isaystaan way iska dhamaanayaan martibaad noqon mid kastana martibaad ku noqonaysa kan iyo kanba martibaad ku noqona marka waxaan la shira inta waalidina isku soo dibaridataan oo wax isu soo sheegtaan oo siyaasiyiinta ka haysataan oo habar jecel shirtaan oo siyaasiyiintuna shiru qabato oo soo heshiisiisaan siyaasiyiintiina idinkoo nin wata Muuse halka ku wareejidi Muuse bixin doonanaya Muuse bixiyo hebel baan ku wareejinaya kaahin musharax baan ahay buu kaahin ma oran waa ligu wareeji Muuse ma oran waan ku wareeji ila dadka afkooda albeen laga ma sheegay laakiin wixii anigu musharax baana way buu maxamed wala tartami way wala musharax baan wali wala ila waxa la siinay wayaga uune muxuu oran waa musharax baana habar jecel markaa u qarnaqday shan isku soo sharaxataa doontaan waxda musharaxiin baanuna anigu waxaan oran lahaa adoo guri ha ka bixino marti ha noqon dib maaha in loo codeeyo wadani la soo saaro anigu dib ma arko
waayo dee gebigeena waxaynu haydee ka nowdhib iyagana markooda hala siiyo ceeb maaha dee in la siiyo laakiin guddoomiyaha qaata meel kalena ha tegina guddoomiyihiinana qaata muusena sanad baa u hadhay waxaa le muusow reerka ina kaahina ha ku wareeji ina kaahinada ku waa shaarkaagii maxaad ku wareejisay maxaad habar jeclo tusta waxba maad kordhin ina kaahin haddaad ku wareejiso waxba umaad kordhin habar jeclo run baan kuu sheegayaa ina kaahin waa jeex adiga kaa mid ah habar jeclo suulaadiinteeda waa kaa dhex xisbigii ciddaad doontaan ii keena aan u saxeeyahe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekadu intaasi ku dhammaanaysa waa haddii aad rajo ka qabto in xisbigana sii jiro haddaad doonaysa in la baabiyona reerkana way iska jiro berray mid kale intay samaystaan cirka u baxayaanoo dhibba kuma lacagtaan dhib ku ahayn ololahaan dhib ku ahayn waxaanaan dhib ku ahayn dhibba kuma hayoba say u soo saareen mid ka waalan bay soo saarayaan weliba kulmiye say u sameeyeen mid ka badan bay samaynayaan jeegaanta timi way iska jiraysaa anigu waxaan aaminsanay in iska jirayso nin internetka heliya waxaan siyaasad weeye laakiin way jiri taasi 80% waxaan ku kalsoonay inay jirayso marka waxaan leeyahay ilaahayna xafido wadankeena nabadgelyaha inooga dhigo kibirka iyo nabadgelyada iyo roobka iyo barwaaqada ayaynu isu haysanaa isu eriyeenna isma aynu eriyeen hadii kale waraad baan idin salaamay nacnadeedan raali ka ahaada waan idin salaamayaa intaas yar xagxaganaysay baryahaaba intiina waa aniga tufay marka waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hey guys, don't forget to like, subscribe and turn post notifications on, and I'll see you guys next time. Bye.